habeen wanaagsan asxaabta sida u dhantiin dhammaantiina meel kasta aad joogtaan waqti wacan ayaan idin rajeynayaa intaa kadib shaxdeena caawa aan soo dhigay maanta galabtii sidaad u jeedaan 98 waxay ku dhowdahay wun sababtoo Brighton iyo kooxda Forest Green sidaad u jeedaan waxaan dhahaa only laba gool ayaan ka imaanayso labada goolna way ka timid wun ayay noqotay Leeds United iyo kooxdan kaleto ayadana waxaan dhahaa Leeds United ayaa badinayso Leeds United sida u jeeda 3 gool ayay leedahay waxa ku soo haray Newcastle iyo kooxdan kaleto Newcastle inkastoo gool laga hormaray balse Newcastle waa koox awood badan oo Premier League sanadkan naftirkeeda kooxaha ugu adag ay ka mid tahay goolkeeda laba ay ku bedeshay 3 daqiiqo maraysa haddana inay 4 ama 3 la rajeynaa kooxdan kale iyadana South Africa ka dhisan waa u jeedaan hal gool ayaa ka imaanaysa ayaan dhahay balse 3 ayaa ka timsaasay ku dhamaatay qaybtan kale iyadana kan ku sii xigta iyadana gabdhaha ah u jeedaa Athletic gabdhaheeda iyo kooxdan kaleeto Alianza ku qoran tahay women igana 3 gool ayaa ka imaanaysa ayaa dhahay 4 ayaa ka timid waxa ku soo hartay kooxdan ugu dambeyso oo maxaan ku yiraahdaa sheeg North Ireland ka dhisan igana qaybta gabdhaha waaye sida u jeedaan 3 gool ayaa ka imaanaysa ayaa dhahay 3 ayaa hadda tii saddexaad wax yar ka hor ayaa dhalisay 65 daqiiqo ayaa maraysa marka ciyaarteena inta kale waa wun 6 kooxood oo caawada saadaaliyay sida u saadaaliyay ayay ku socdaan kaliya waxa noo dhiman Leeds United sida u jeedaan waaba wun 100% sida la rajeynayo Newcastle ayaa ku soo hartay Newcastle-na idana inay labadan gool mid ku sii darto ayaan rajeynaynaa marka shaxdeen caawa sidaas ayay weyn ku noqon doontaa fadlan haddaad videogan daawato shax kasta soo dhigna 99 ilaa 100% sida weyn ku noqon karta ayaan ku dadaalnaa adigana nagu soo bir si aad noola qaybsato wax kasta halkaan soo dhigno aad baad u mahadsantiin waxaan rajeynaa in videogan si tartiib aad u daawo doontaa oo mahadsantiin asxaabta